waan salaam dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena biday aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta balse intaan u guda gelin muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa janaalka soo biirto muuqaalka dadka shalaag inoo saar sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal haddii aan ku bilaabno wararkeena kuwa ugu waaweyn waxaa qayb ka ah jilaaga lagu magacaabo Kovinda ayaa maantadan ku dhawaaqay inay kala tageen asigii xaaskiisa gabadha lagu magacaabo Sunita Huja 37 sano kadib Kovinda iyo xaaskiisa ayaa maanta ku dhawaaqay inay kala tageen labadan shakhsi ayaa isguursadeen 11kii Maarch sanadii 1987 waxay isku dhaleen laba caruur ah wiil lagu magacaabo Yashradan Ahuja iyo sidoo kale gabar lagu magacaabo Tina Ahuja marka la eego Kovinda horaantii gabadha intuusan barin ka hor wuxuu xiriir jecel lahaan jiray gabadha lagu magacaabo ama atrishadii caanka ahayd ee Neelam Kathori sidoo kale wuxuu xiriir jecel soo sameeyay atrishada caanka Irani Muqradi laakiin markaas waxa uu qabay gabadha hadda ay kala tageen ee Sunita Huja kala tagitaanka Kovinda iyo xaaskiisa Sunita Huja ayaa ah wararka ugu weyn ee waqtigan lagu daabacay shabakadaha ugu weyn ee ka soo baxay gudaha dalka India halka maalintii shalay ahayd Kajal iyo Ajit Devgan u dabaaldegeen sanad guurida arooskooda 26aad labadaas jilaa waa laba kamid ah jilayaasha fanka Hindi lagu jecel yahay khaasatan Bollywoodka waxay isguursadeen marka la eego 24kii February sanadii 1999 Ajit ayaana shalay bartiisa Facebook ama barihiisa social media soo dhigay sabir asiga iyo sidoo kale xaaskiisa Kajal dhinaca kale wararka ugu waaweyn ee waqtigan taagan waxaa qayb ka ah Shah Rukh Khan filimkiisii Pathaan qaybtiisa labaad ayaa shaac laga qaaday in la sameyn doono sida uu shaac ka qaaday directorka caanka Aditya Chopra waxa uu qalinka ku duugay in filimkaasi la bilaabi doono shaqadiisa bartamaha sanadda 2026 Shah Rukh Khan filimkan Pathaan waa filimkii uu ku soo laabtay marka la eego guulo waaweyn ama guul weyn ayuu u gaaray filimkan Pathaan sheekooyin kale waxaa qayb ka ah John Abraham filimkiisa The Diplomatic ayaa shaac laga qaaday inuu Post Bond noqday ama dib u dhacay filimkaas waxaa la rajeynayay 7 Maars in tiyaatarada la saaro laakiin hadda 7 maalin kale ayaa dib loo dhigay waxaan la daawan doonaa 14 ama 14 Maarch sanadan 2025 dhanka kale hadaan eegna aflaamta tiyaatarada saaran wali waxa tiyaatarada saaran filimka weyn ee Jaffa maalintiisa 11aad waxa uu soo xareeyay 353 karoor filimkan si xawli ayuu ku socdaa marka la eego waxaana kaalinta lixaad ka galay aflaamta sida uu dhaqsiyaha badan ku gaaray 300 karoor markaan eegna kaalinta koowaad waxa ku jira filimka Jawan ee Shah Rukh Khan hogaamiyaha ka yahay 5 maalin ay ku gaareen ka badan 300 karoor Animal 6 maalin ayuu ku gaaray halka Pathaan oo 6 maalin ku gaaray Kadar qaybtiisa labaad ama Kadar 2 oo sanadul hogaamiye ku yahay 3 maalin ayuu 300 karoor ku dhaafay marka la eego kaalin shanaad filimka Streets ayaa ku jiro qaybtiisa labaad 8 maalin ayuu ku gaaray 300 karoor halka filimkan Jaffa 6 maalin ama 10 maalin oo ku gaaray 300 karoor markaan eegna Vicky Kaushal filimkan waa filimkiisa ugu weyn ee taariikhda uu sameeyay isla Vicky Kaushal hadii aan eegno 6 filim ee ugu dambeeyay natiijaan sidee noqdeen laga soo bilaabo 2020 waxa uu keenay vote qaybtiisa koowaad average ayuu u noqday 23 waxa uu soo baxay Zara Badke hit ayuu u noqday isla sanadii 2023 waxa uu keenay mar kale filim lagu magacaabo The Great Indian Family flop ayuu ku noqday 2023 waxa uu soo baxay filim kale lagu magacaabo Samba Hudur hit ayuu u noqday 2024 Bad News ayuu soo baxay average ayuu u noqday halka sanadan 2025 uu soo baxay filimka Java waxa uu noqday blockbuster waqtigan joogo laakiin waxa suurtagal in waqtiyada soo socda uu noqdo all time blockbuster filimkan ninka kaabaladarka ka ah ee akshay kana hadii aan eegnane filimkan waxa weeyaan waxa uu kamid yahay ama filimkan waxa uu noqday filimkiisii ugu weynaa asna uu sameeyay markaan eegna aflaamta uu sameeyay 6 filim uu sameeyay ee lacagaha ugu badnaa soo xareeyay taariikhda markaan eegna Jaffa ayaa kaalinta koowaad ku jiro 334 karoor ayuu keenay Diresham qaybtiisa labaad oo Ajay hogaamiye ku ahay ayaa qayb ka ah 240 karoor ayuu keenay filim lagu magacaabo Dishum oo John Abraham iyo Fernando Damon oo qayb kale ah 70 karoor ayuu keenay Tez Markan waa filimkii comedy-ga oo shactarada badnaa oo Akshay Kumar iyo Kathrina ay ku jireen ayaa asigana kamid ah aflaamta lacagaha badan keenay oo jilaagan sameeyay Rice ayaa kaalin shanaad ku jiro oo 60 karoor ka badan keenay halka kaalinta lixaad ku jiro filimka Border oo sanadii 1997 soo baxay 39 karoor ayuu keenay marka la eego filimkaasna waa filimkii ugu weynaa 97 soo baxay saaxiibayaal dhanka kale markaan eegno aflaamta dhankaasi koonfur Hindiyana waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Dragon wuxuu saaraya muddo 3 maalin ka badan ayuu tiyaatarada saaran yahay marka la eego ama 4 maalin ka badan lacagaha uu soo xariyin waxa lagu sheegaa in ka badan 35 karoor saaxiibayaal sidoo kale waxa tiyaatarada saaran filimka lagu magacaabo Mary Husband Ki Bewi filimkan hogaamiyalka wada Arjun Kapoor gabdhaha lagu kala magacaabo Rakul iyo Bobby marka la eego filimkan maalintiisa afraad waxa uu soo xariyay wax ka yar 6 lag oo kaliya hal karoor xataa waa uu keeni waayay afartiis maalin wadarta guud lacagaha uu keenay waa 5 karoor marka la eego filimkan waa filim waqti horeba hoobtay ama disaster noqday ama burbur saaxiibayaal dhanka kale maanta waxa sanad guurida dhalashadiisa 44 u dabaaldegay jilaaga caanka ah Shahid Kapoor waa mid kamid ah aktarada Bollywood ugu caansan fanka Hindi waxa ku soo biiray sanadii 2003 filimkiisa ugu horeeyay waa filimka Ishq Fishq oo 2003 soo baxay waa mid kamid ah aflaamta aad kale xiiseyn jiray xilliga shaleemooyinka wali wajina dad aad u xiiseeyeen oo anigu aan kamid ahay filimkiisa ugu dambeeyay waa filimka Deva oo sanadan 2025 loo daawaday dhanka kale maanta oo kale aflaamta soo bax kuwada ugu caansan waxa ka soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Bevava Akshay Kumar iyo sidoo kale Anil Kapoor
Kareena Kapoor iyo Sushmita Sen ayaa hogaamiyaalkooda ahaayeen markaan ayna filimkan natiijo aan waxa uu noqday film below average ama film cool dareystay maanta oo kale 25 Febraayo sanadii 2005 ayuu soo baxay saaxiibayaal dhanka kale aflaanta maanta oo kale soo baxay waxa qaybka filimka lagu magacaabo Kabina Shah Rukh Khan iyo sidoo kale Deepak Tejuri ayaa hogaamiyaalkooda ahaayeen maanta oo kale 25 Febraayo sanadii 1994 ayuu soo baxay natiijo aan Sami Hid ayuu noqday ama film guul weyn gaaray hadaba intaas ayaan kusoo gabagabay muuqaalkayga fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar sii share garay walawada asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena